digniin weyn ayaan caawa u wadaa magaalada dhuusamareeb la yiraahdo warkaan idiin soo sheego boqolkiiba 90 waa xaqiiq tobanka kalena bili aadan ah iskale runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa muhiimadeedu waxay tahay inaa adinku badbaadiin oo nabad gashiin oo cadowga iska dhicisiin cadowga adinku ogna inuu soo gala ma ahan adinku ogeyn inuu idin soo gala ma jecli qawaariista nimanka dhaxdoodii waxaa laga helayaa akhbaaraad war hadda la soo gaarsiiyay ragaan ku kalsoonahana aan afkooda ka furay oo ciidamada wax ka yaqaana kana tirsan ciidamada magacoodana aan halkan ka baahinayn waxay ii xaqiijiyeen oo waliba nabad sugidda ah waxay ii xaqiijiyeen saraakiil ah waxay ii xaqiijiyeen bulcalle agtiisa baabuur qaraxa meel bulcalle u dhow oo dhinacay ka jirta anuu jahadii ka jirta ima sheegin inuu baabuur qaraxa ku diyaarsan yahay baabuurkaasna la qorsheynayo in dhuusamareeb la soo geliyo oo loo soo wado dhuusamareeb tan labaad waxay iigu dareen qawaariista waxaa laga dhageystay dhaxdooda oo teleefanadooda laga dhageystay kaartooyinkii hore oo fiidka hore socon jireen inay bedeleen oo ay ka dhigteen saacadaha 12 habeenimo wixii ka dambeeya ilaa 5 subaxnimo iyo 6 subaxnimo inta loo gaaro 12 habeenimo hore inay socon oo ay socdaan 12 habeenimo dambe oo siqda dhaxa ah ayaa teleefanadooda laga soo dhageystay aniga codsiyaan soo dirayaa adinkoo ka warqaba oo xoog ogaala haydin yimaadeen nimankan yeesa idii imaan adinkoon ka warqabin yeesa idin qarxin adinkoo ka warqabin yeesa aagina soo gelin waxaan codsanayaa dhuusamareeb saa u howlgeli jirteen laba waan ogsoonahay magaalada in amnigeeda inuu adag yahay waan ogsoonahay magaalada in meel kasta maaragtay laga sugay amnigeeda waxaa igu maqaalaa oo la soo gaarsiiyey habeen dhawood waxaan soo gudbiyey oo codsaday guryaha in la baaro war ana boqolkiiba boqol xaqiiqsan oo nin dhalinyaro ah igula hadlo ciidamada waxba ka aqoon wuxuu igu yiri dhuusamareeb waxaa laga soo bixiyey guri koox u kireysnaa oo qaraxyo lagu diyaarinayay warkaasna weli dabagalaan ku hayaa haddii ay dhacday arrintaas hadda warkaa idiin sheegay runuu ahaa xaqiiqoo ahaa qaraxyada inay nimanku ay dhaheen aan ku diyaarino magaalooyinka macnaha dhexdooda aan ku diyaarino inay dhaheen waa wax laga soo xigtay oo dhexdooda iyaka laga soo xigtay ku shireen oo ay dhaheen baabuur qaraxa waa gelin weyne meeshaas iyo aagga raggaasu degan yahay ee ay magaalooyinka ay degan yihiin aan ugu diyaarino waxaan rabaa caawa digniin kale oo weyn inaan u diro dhankan saleebaanku dego oo cadaade iyo xaggeeda ah aan rabaa inaan digniin u diro weerarna way ku tegi karaan qaraxna way ku tegi karaan labaduba ayakana sir waxaa laga helay inay dhankaas ku wajahan yihiin oo saleebaan dhabar jabin rabaan tan labaad waxaan rabaa inaan digniin u diro nimanka jooga camaaro oo ayakuna camaaro maaragta ku sugan nimankii maanta weerarka lagu qaaday guute iyo 500 ay ahaayeen oo ka gooniyo guutada ka dheeriye niman tiradii ka batay ahaayeen waxayna diyaarinayeen caawa iyo habeen dambe inay ama cabaaro ama shabeelow ay ku galgashaan labadaasi diyaarinayeen waa la wiiqay boqolkiiba 50 maanta jabaa ku dhacay waana la wiiqay jab weynaana gaaray rag badan oo qaraxyahana ka qasaaray waxaan kuu hubaa inta kale inay diyaarsan tahay oo ay meel ku socoto meel ay tahaba ama camaaro ama shabeelow ruuxiisa ku soo laabanayaan caawa kuu xaqiijinayaa difaaca ha la adkaysto yaa la baqin nimanka hawdka ha loo galo kaama awood badna qaraxna kulama soo aadi karaan ka foolna ninna kuma soo aadi karo iska dhiciya dhulku waa bacaad waan ogsoonahay gurmadkuna wuu yaraanayaa dhulka hadduu bacaad yahay laakiin ha laga diyaar garoobo hana laga maaragtay laga digtoonaado qawaariistu wax alla waxay ciidan haysay oo shabeellada dhexa joogay oo galgaduud joogay oo meel walba ka joogay galmudug iyo hirshabeelle mudug ay caawa joogaan anaa kuu xaqiijinaya qof dambana soo weydiin maysid inta kale waxaa jooga niman waardiye ah oo la yiraahdaa waa joognaa sheekadooda dhowr iyo 10 jooga inta kale magaalo walba xataa ceel buur ragga jooga 50 ma dhama xataa ceel garas iyo ceel mahalkan la yiraahdo ishaag iyo inta dubluhu degoo dhan 50 ma dhama ragga jooga waa 20 wax alla wixii qawaariijaha caawa mudugay taagan yihiin anaa kuu xaqiijinaya diyaaradda wax duqeyn jirtay iyo bayrakdaar iyo hadday joogto godadkaas waa buuxaan ilkahaasay maraysaa hadday bayrakdaar tagta meeshaas way ku dili kartaa in ka badan 2,000 ama 1,000ba caawa anaa kuu xaqiijinaya 1,000 ma joogto laakiin 1,000 iyo santiin ragaha jooga jabaana maanta gaaray
ujeedkooduna wuxuu ahaa weerar intay soo qaadaan inay meel soo afjaraan camaaro ama shabeelow soo afjaraan ujeedkoodu ahaa hallina kama maqnayn raggii caws weyne ka dagaalamay raggii ka dagaalamay galgaduud oo dhan shabeellada dhexe ka dagaalami jiray raggii galgaduud ka dagaalamay kulligood oo dhan bartaasay joogaan caawi anaa boqolkiiba boqol kuwa xaqiijinaya meel kalena ma jiraan dowladda xasan sheekh maxamuud oo xukumo waxaan ka codsanaynaa oo aan si sharaf looga codsanaynaa dagaalka halka weji ka socda in la joojiyo oo dagaalku uu dhowr weji ka bilowdo oo nimankan dhulkan faaruqa ay soo banneeyeen lasoo qabsado lasoo dabagalo hal meel loo fariisan wax kaa horeeya iyo wax ku hor istaagi kara midna male waa niman isku gurmanayo hadba meel aadaya niman isku gurmanayo hadba meel isku gurmanaya in hal wajaha lagala dagaalamo ma ahan ciidan kale aan lagu jabin waa codsanaynaa ragga ciidamada wax ka yaqaana oo kaartada yaqaana oo nimanka dagaalkooda yaqaana dhowr weji oo dagaal ah oo lagu socdo oon laga istaagayn nimankan ha lagu bilaabo waa codsanayaa caawa codsi iga taa aniga xil guntadaa dagaalkii maanta dhacay dagaal wuxuu ahaa laga hortegay oo sirtiisa iyo maaragtay sirdoonkuba ay heleen oo la rabay ama shabeelow ama camaaro in lagu soo afjaro weli ragaa kaydsan oo tiro badan oo diyaar u ah weli inay soo weerartamaan meel ka midana ay soo weeraraan waxaan rabaa inaad digtoonaatiin oo aad isku tashatiin oo awooddiina ku tashatiin dhuusamareebaan usoo laabanayaa baabuurka qaraxa oo dhanka burcle xaggiisa laga sheegay baabuurkaas qaraxa waa weyn yahay iyo waa yaryaha ku dhihi maayo waa noocaas ku dhihi maayo laakiinse baabuurkaas qaraxa oo caawa la soo wariyey in aad ka diyaar garowdaan oo aad difaac ka gashaan oo aad raadisaan weliba xariyihiinna ay isticmaashiin aan caawa halkaan kugu soo fariisto aan ka codsanayaa amniga iyo waxaan kuu soo gudbinayo waxba kuma dhibayo xabadna maahan xabadna kuguma dhufan inaan waxaan rabaa badbaadid oo cadowga ah ka badbaadid oo nimanka qawaariijta ah oo dagaalamaya oo isqarxiraya oo soo yaacaya aad ka hortagtid oo bartooda ku fashilisid haddaad bartooda ku fashilisid oo ka hortagtid dadkaaga shacabka ahaana waa badbaadsatay adiguna waa badbaaday ilaahay subxaanahu watacaala ayaana badbaadin kara qof walbana ilaahay wuxuu u qoro wax ka badan adduunkan kula kulmi maayo naftaadana hal mar wax ka badan ma dhimanayso laba goorna ma dhimanaysid aniga xil guntadaa caawa waxaan kuu caddaynayaa inay nimankii soo laba kacleeyeen oo ay ayaantaan nasteen oo ay go'aansadeen inay meel soo afjaraan laakiin nimankii maanta mudug joogay ayaa fashiliyey haddayna ka hortegi lahayna oo ilaahay ku aadin lahayn midaan maantana waxaa dhici lahaa caws weyne oo kale wixii dhacaa dhici lahaa anaa kuwa xaqiijinaya caws weyne wixii dhacay ayaa dhici lahaa anaa kuwa xaqiijinaya laakiin waa laga hortego waa la wiiqay maantay inta dambe weli tabara isku sii dayayaana ha laga hortago